السلام عليكم يا صحابتي لما انت ودي سلامة قول يا قبنمو dadka igu soo biro wixii soo dhawaada walaalahay dhamaantiin guriga gobonimo idin leeyahay subscribe-kan haylaysa dadka subscribe-ka isaan fiirsada insha Allah guriga gobonimo idin leeyahay dhamaantiinba caawa ma sha Allah siikay 25 oo ay malaafitii warka marka soo dhigay laakiin kama hadleen fursad aan uga hadlaan waaye maxay yahay hoola adduunka iska hoola badan tahay Yurub laakiin kiisikii waxaan leeyahay guriga gobonimo aan ku leeyahay عقليgaas hadii niman badan oo social media waxay rabaan iska sheegaan aw ku jiri lahaa wallahi laba qof oo isku dhagal ma wala arkay maxaa yeelay afkan hadaa daboolato oo la caytamin oo waxba dhihin wax ka fiican mal af daboolan dahabay tira Soomaalida ma sha Allah guriga gobonimo ku leeyahay kabaha aad gashan tahay ninka shakara ma lahan waxaan ku leeyahay hore u soco wixii hadlayaa iska hadlee هرب وصعان كله إن شاء الله بإذن الله كريم أنا وحن كله هاي قول يجوا منهم كواه عاد كشطة من كشكر ملها حدد سوشيال ميديا عاي يقولوا لي بلاي يقولون كسو قشة تتكلموا يكون عايا لكن هذا احترام يرسبكت يكسو قشة الله والله احترامه ما شاء الله كواه عاد كشطة ما كشكر ليه هرب وصعان كله نينها أقول لي عن هرتادو هاي وأكوغ هاي قف قلبك uga fiican tahay ma sha Allah haliicina kulay hay nin walba hortiisa adiga gabadha dadka kale tag nin walba hortiisa khayr Allah dhigo adna horta qara Allah dhigo ayada hortiisa khayr Allah dhigo isu ducay isna cafiya waxa ka fiican la saamaxo ma jirto oo nin walba la saamaxo oo la yiracafiyo masaabax oo nin walba dantiisa qoosado ma fahanti saasa fiican in la iscafiyo oo dad walaala aad noqotiin oo la iscafiyo oo qalbi waxba la isku wahaynin wax fiican waay insha Allah ani taas ay ku tali lahaa ma hada waxa in ka dhaxeeyay ma boga karo in la iscafiseen ma oga karo inaad maxay laakiin dad gur iyo reer soo wada leelaatiin mar walba niyad isu furo iscafiyo taas aad dardaarankeega insha Allah wax yaran kiisi ka dhageysan family dadku isku jiraan dadka ugu wada xiran isku jiraan waxa jiro dad qaas ah aynu laabta iskala socono hal magacna walaana waxaan la yiraahdaa CK family fariina u diraayo CK family iyo qodobka saddexaad oo ah fariina u dirayo dhalinyarada doonaya sidoo kale inay caan noqdaan khaasatan ku haminaya inay noqdaan YouTuber saddexda qodob ayaan halkan uga hadli doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo qodobka koowaad ayaa u gudagalayaa oo ah soo dhaweynta haddaba iyanu soo dhaweynaynaa sidaad ogtihiin baa anigu waxaan ka tirsanahay bahda YouTuberada waliba waxaa la dhihi karaa waxaan ku jiraa 10ka ugu horeeya ee ugu tunka waaweyn YouTuberada Soomaaliyeed mid ka mid ah waxaan leeyahay magac ii gaar ah iyo team ii gaar ah teamkaas oo aan u bixiyay CK family oo macnaheedu tahay in aynu midna haddaba anigoo ku hadlaya afka CK family waxaan halkan soo dhaweyn ballaaran ugu sameynayaa oo YouTube-ka bahda YouTube-ka ku soo biirtay dumaashidin X oo ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed maadaama anigu ka mid ahay 10ka YouTuber ee ugu tunka waaweyn waliba aan dhihi karo CK family waa kuwa ugu horeeya magaca YouTuber xilligan la taagan yahay oo aynu nahay number 1 ayaa waxaan leeyahay maadaama aynu nahay dadka kursiga ku fadhiya xilligan dumaashidin X-na ee ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed ayaa waxaan doonayaa halkan inaan codsi uga diro anoo ku hadlaya afka CK family in aynu soo dhaweyno dumaashidin X oo ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed oo aynu anaga ka mid nahay maadaama kursiga ugu sareeya aynu anaga ku fadhino waxa waajib inoogu ah in aynu ku soo dhaweyno bahda YouTuberada Soomaaliyeed aan si sharaf leh kaga codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca CK family in aad janaalkeeda subscribe u saartaan waxaana ku qoran Manaal Beldaaji waxaana janaalkeeda soo dhigi doonaa fiidiyogan hadda idin hor fadhiyo qaybta hoose ee commentiga bina waa ku qaban doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo qodobkayga labaad waxaan halkan fariin uga dirayaa CK family oo aan leeyahay waxaan doonayaa maanta halkan inaan tusaale uga noqdo dhalinyaro fara badan aniga oo og marxaladda xilligan taagan aniga oo og maanta social media meesha aan ka taaganahay aniga oo og
howsheeda ama hadalhaynteeda social media sida ay ka tahay, aniga oo og in farqaha lagu dhagan yahay, aniga oo og in CK family ay ii dagaalamayaan, idinkoo dhanna budad aad sidataan, ayaan waxaan idinka codsanayaa anigoo wiilkiina ah gobonimo wax la yiraahdana ku hadlaya in horta budadka aad dhigtaan. CK family mid baa idin sheegaya waxay tahay gobonimada anigu waxaan u aqaanaa qofka dhaqankiisa. gobonimada iyo nasabnimada la sheego anigu uma aqaano siday Soomaalidu tilmaamaan qabyaalada iyo waxa, anigu waxaan u aqaanaa gobonimada iyo nasabnimada la sheego qofka sida uu u dhaqmo. aniga oo raacaya wadada la raaca wadada ugu wanaagsan ee ah wadada gobonimada ayaa waxa idin leeyahay saxanka adiga aad wax ku cunto waxa uu kaaga baahan yahay xushmad. iska daa qof aad ay soo wada cunteen nolol aad soo wadaagteen. haddaba waxa idin leeyahay waxaad ku mahadsan tihiin aniga sidaad iigu dagaalantaan, waxaad ku mahadsan tihiin kalgacaylka aad ii muujisaan, waxaad ku mahadsan tihiin sida aniga dadka xumaanteeda ku dhiirada aad qalqalka u gelisaan, waxaad kaloo ku mahadsan tihiin sida aniga markii aan qaldanahay ama gaf iga dhaco ama dhiiqo lugaha aan la galo sida luuqa intaad igu soo gashaan aad talooyinka wanaagsan ii siisaan. aad iyo aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa in dad wanaagaas uu ku dhan yahay aan run ahaantii u ahay role model, kursi ay ii dhiibteenna aan ugu fadhiyo oo aan hool u hayo. haddaba waxaan idinka codsanayaa aniga oo og, waxaan idin leeyahay marxaladda taagan aniga oo og ayaan waxaan idin leeyahay budka gacmaha aad ku haysaan inoo dhiga, waddo ayaan inoo jeexayaa, waddadaasna magaceeda waxaa la yidhahdaa gobonimo. mar kale ayaa idinku celinayaa, waxaa laga yaabaa mararka qaar inaa ilowdid wadada wanaaga ay duruuf kuu geyso, mararka qaar waxaa dhici karta duruufta inay kuu geyso inay kaa dhigto qof aadan adiga ahayn. haddaba waxaa idin leeyahay nasabnimada la sheego iyo gobonimada la sheegaba waxay ku jirtaa qof aad shalay cays soo wada cunteen in aad u haysid ixtiraam wax kasta oo qofkaas qalbigaaga ugu jiray. muhiimaddu waxa ay tahay qofkan haddii aad cays gacan soo wada geliseen, iska daa qof aad nolol soo wada marteen, in aad u haysid ixtiraam marka ay noqoto bulshada dhexdeeda. qalbigaaga waxa ka guuxaya adiga qaas ku yihiin, balse nasabnimada la sheego ma aha tan qabiilka ee waxa ay tahay qofka aad cays soo wada cunteen, aad nolol soo wadaagteen, inaad noqotid qofkaa qof wanaag u haya. waxaanina waa youtube-ka lagu sheegayana aniga hadda idinle qofka ugu sareeya ayaan ahay youtuberada Soomaaliyeed ee magaca CK family ku hadlaya. waxaa laga yaabaa isla beriba youtube-kan inuu hawada ka baxo, no one knows inta uu jiraayo maadaamay wuxuu waxaas yihiin. haddaba haddii dumaashidiin X ee kusoo biirtay bahda youtube-ka inaguna aynu nahay kursigan kuwa ku fadhiyay iyada ugu soo horeeyay, waa inaynu kusoo dhaweynaa. u kaadi inta aanan ka bixin qodobkayga labaad ayaa waxaa idin leeyahay hadalka meeshan aan usoo fariistay oo ah gebi ahaanba mid aan la iga sugayn buuqa iyo sawaxanka iyo social media sida la ii hadal hayo. hadalkaan la soo fariistay 90% maaha mid liga sugayay. sidaa awgeed waxaa idin leeyahay cabsi halkan ima soo fariisin, agajugleyn halkan ima soo fariisin, wax dambe oo aan ka baqayo oo aan isleeyahay waxaasaa effect ku geysanayana halkan ima soo fariisin oo hadalkan igama yersiine. waxaa iga yersiisay hadalkan gobonimo iyo qof ahaan qofka aan ahay oo aan ka tarjumay. mar kale ayaan waxaa idinka codsanayaa aniga oo qodobka labaad ka baxaya CK family-na la hadlaya, war nimayo meesha aan ugu caabaanina cimaamada ha naga ridina, eekis dumaashidin sacab iyo farxad ha lagu soo dhaweeyo. waa tahay halkaa waxaan uga baxayaa qodobka labaad oo aan ku soo gunaanaday in aan idiraado waxaan ka hadlay qof ahaan qofkaan ahay oo aan ka turjumay. cabsi igama hadalsiin, khayaarkayga ayaan halka kusoo fariistay oo aan go-aankan ku gaaray. haddaba waxaa ii dhiman qodobka saddexaad oo ah fariinaa u dirayo dhalinyaro adiga i daawanaya. haddii aad doonaysid in aad noqoto qof caan ah ama youtuber ah sidayda, ama aan ku ahayba aniga role model, adiga i daawanaya ee CK family ka tirsan ama aan ka tirsaneen oo janaalkan ku xiran ee muuqaaladeyda daawada ee CK yaqaana, haddii riyadaadu ay tahay in aniga aan role model ku ahay oo aad noqotid sidayda oo kale. maasha allah, waa sax wallahi. wuxuu ka hadlay wax jira waay. nin raga anu kaasaan waqaanaa, nin raga oo inta la caayiro wax walba la dhaho
يعني عن كجوامن ساسا لغا ربا هورا وصعو waxba kaaliyooda wax marmo oo laalaabka iyo daba iska daba wareega dumarka lagu yaqaan ragga waxaan hore oo ninkii inta waxay soo mara ka mayro dhahe hore u socda ninkii caay ninkii hadlayaba iska hadlay anigu hore uga socdo wax fiican waay kulli gobonimo kule hore u soco maxay iyo jabin bini aadankana inay dadka nibi jabiyaan dadka ay xanuun ku ridaan ay rabaan laakiin waxba waxa saga dhib maayaan guuliyo gobonimo kule iskiisikay maxay ahayd hore u socon ku dhaa wiil yaraa tahay insha Allah waxaan inta ku aad leedahay calooshay wax kugu hayo 3 bari wixii ka badan waa dambi halays caafiya dhalinyaro adduunkana waa laga tagaa nin walba karfan cad ay inta ka qaato aadaga gelina waxaa la dhisaayo oo maxay ahayd waxa ka fiican in la isu qalbi fiicnaado oo qalbiyaasha la isu furo wallahi anu waxaan ka jeclahay in qalbiyaasha la isu furo oo qabyaalad iyo qurunka iyo magaciisa war anaka Soomaali kelmad horta ma taqaana oo Yurban joognaa kinsiga yana kaba iyo dadka is haysta oo dhan maxaa ku qalo Soomaali ma qabiil hebel ku qalan warooy adduunka waa laga tagaa karfan cad ayaa la iska galina wallahi adduunkan inaan nina ku waarin nabi maxamed oo waxa ilaahay soo saaray ugu qayl badnaa godow gola karfan loo ka qaat marka adduunkaas ku leedahay qabiyaal iyo qurun waxay taayaan malaha ilkaha beer igu xiran yihiin raal muqda carabka shigshiga insha Allah guuliyo gobonimo ilaa dhamaantiin hore u socda dhalinyarada dhan oo YouTube leeda oo wiilkan ku dhagan iyo kuwan ku dhaganayba waxaan idin leeyahay qabiyaal iyo qurunta meel iska digtiin hal is cafiyo amtaasaan niyad ayga talo guuliyo gobonimo ayna leeyahay insha Allah dhamaantiin gol laba mitir hal la gelina qof walba horaha looga socdo waxaan